magacaygu waa Cabdikaafi Xasan Cabdi waxaan ahay madaxa cilmi-baarisyada macadka cimilada iyo deegaanka ee jaamacadda Simad. Daraasaddan waxay xoogga saaraysay sida wadamada Afrika ay ku heli karaan maalgashiga caalamiga ah. Maalgashiga caalamiga ah waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay isha ugu muhiimsan ee wadamada soo koraya ay ku heli karaan horumar dhaqaale, maadaama uu keeno in xirfadaha dadkan ay horumar sameeyaan, sidoo kalena tiknoolajiyad horumarsan ay ku helaan. Sanadkii 2021 riboodkii ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ee World Investment Report wuxuu tilmaamayay wadamada ugu hooseeya ee hela maalgashiga ugu yar inay intooda badan ku yaaleen Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Maalgashiga caalamiga ah kuma yimaado si la mid ah habka ay ku yimaadaan deeqaha caalamiga ah. Waxay u baahan yihiin wadamadu inay soo jiitaan. Haddaba daraasaddan waxaan isku dul taagaynaa waxyaabaha keena in maalgashiga wadamadan uu hooseeyo iyo sida sare loogu qaadi karo. Iyadoo daraasaddu ay ka faa'iideysanayso habab cilmi-baariseed oo horumarsan, waxaan soo helnay in tayada hay'adaha dawliga ah oo hooseysa ay qayb weyn ka qaadato in maalgashiga wadamadan uu hooseeyo, sida hufnaanta dowladda, controlka corruptionka, iyo sareynta sharciga. Natiijo kale oo muhiim ah waxay ahayd xasiloonida dhaqaale ee wadamada waxay ka qayb qaadataa inay soo jiitaan maalgashiga shisheeye, sida heerka controlka sarifka lacagaha waddanka iyo sicir bararka. waxyaabaha kale ee soo jiita maalgashiga shisheeye ee daraasaddu ay soo heshay waxaa ka mid ah maalgashiga gudaha, dakhliga dadka, iyo furfurnaanta ganacsi ee wadamada.